بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقالكن waxaynu ku sharaxaynaa validation rule. Microsoft Access wuxuu leeyahay xeer la yiraahdo validation rule kaasoo ah xeer ka shaqeeya in xog sax la xareeyo. Markaan leenahay waa xeer ka shaqeeya in xog sax la xareeyo. Xeerkan wuxuu xadidayaa qoraal, tiro, lacag, da iyo sooyaal ama taariikh. Marka qoraalka oo kale qofka magaciisa marka la diiwaan geliyo waxaad ku programming kartaa ama aad ku xadidi kartaa magacaasi inuu dhowr xaraf noqdo. Tusaale ahaan haddii aad doontid waxaad leedahay magacu kama badan karo 10 xaraf 12 xaraf meelaha. Haddii tusaale ahaan aad rabtid in aad diiwaan gelisid arday aad rabtid ardayga meel in loogu qoro koodhka kooraskiisa oo kale ama ID oo kale waxaad leedahay intaasoo number iyo ka badan. Marka waxaynu xadidaynaa qoraalka inta xaraf noqon karo, tiradu inta guud ay noqon karto, lacagtu intay gaari karto ama ka yaraan karto ama ay ka badan karto. Da'da qofka waxaan oran karnaa ardaygan diiwaan gelinayna da'diisu waxa u dhaxayso 10 jir ilaa 15 jir. Taariikhda la diiwaan gelinayna tusaale ahaan haddii dukaan oo kale aad haysatid waxaa leedahay qofka markuu deyniga qaadanayo taariikhda marka la diiwaan gelinayo uu qaatay alaabta ha noqoto taariikh la joogo ama ha noqoto taariikh la soo dhaafay. Sidoo kale waxaan tusi doonaa sida loo xadido taariikh aan la gaarin. Marka Microsoft Access database-kaygaan uu file cusub oo table ayaan haystaa. Haddii table uusan ku samaysnayn marka ugu horeysa file aan tagno new baan leenahay project cusub ama database cusub ayaan soo aasaasayna. Database-keena marka magac baynu siinaynaa waxaan ula baxaynaa arday enter baan leeyahay create ku dhufan karnaa. Table koowaad ayaa noo samaysmay si table-keena aynu magac u siino meesha table 1 kaan tagayaa right click baan leeyahay kadibna waxaan leenahay save kadib waxay noo soo baxaysaa daaqadan oo ah table name-ka. Table-kan hadda kan waa iska masaxaynaa waxaynu u bixinaynaa arday kadib okay baan leenahay. Imika waxaynu haysanaa table la yiraahdo arday. Table-ka markaan wax ka bedelayno laba qaab oo u tagi karnaa. Mar inagoo joogno home ayaan waxaan dhahaynaa view kadibna design view ayaan ku dhufanaynaa. Oo design view waa meesha marka table-ka la diyaarinayo laga soo design gareeyo wixii laga doonayo in lagu qoro. Ama meesha ay ku qoran tahay table fields ayaa tagaysaa kadib view-di waatan design view. qaab saddexaadna waa jiri kartaa ama wayba jirtaa oo ah in table-ka magaciisa arday aan right click dhaho kadibna aan ku dhufto design view. Marka hadba kii ku fudud taabo hadda aanu design view ayaan leeyahay kadib wuxuu keenay bartan. Halkan marka field name-ka waa booska ayaa magac laga siiyaa. Macnaheedu booska markaan leeyahay haddaan halkaa ku qoro magac hadhow meelashaas magaca uu mugaar u yahay magacu inoo noqon jiray short text inta waa dhigateen saartinayo. Haddii aadan dhigana waxaa jira casharo aan kaga hadlayo waad soo daawan kartaa. Magac iyo ardayga waxaynu ka buuxinaynaa fasalkana waxaan ka dhigaynaa short text. Sidoo kale waxaynu ka buuxinaynaa ardayga da'duna marka waxay noqonaysaa oo laga dhigayaa data type ama nooca xogtiisa da'du maadaama tiro tahay number. Sidoo kale waxaynu qoraynaa ardayga ka qoraynaa fee-guna maadaama lacag yahay lacagtu number noqon mayso waxaan dhahnaa currency. Ugu dambeyn waxaynu qoraynaa taariikh oo ah ardaygan xilliga la diiwaan geliyayna in aynu qori karno iyadana waxaan ka soo dhigaynaa data type-kiisa date and time. Marka validation rule-ku waa xeer xadidaya wuxuu xadidayaa shayga inta laga doonayo. Tusaale magacaan taabtay magaca markaynu taabano halkaa waxaa ku qoran meeshaas validation rule godkiisa midigta ayaan tegaynaa. Marka magaca maxaan ku xadidayaa magaca iska fudud yahay waxaan rabaa tusaale ahaan inaan magacan ku xadido inuusan ka yaraan kana badan 5 xaraf. Marka qaacidada qoraysid waa tan godkan validation rule-ka ayaa lagu qoraa. Iska ilaali inaad meel ka sareysa ama meel ka hoos ku qortid. Isla validation rule-ka godkiisa ayaa soo taabanaysa waa kan validation rule-ka soo raac. Marka waxaan qoraynaa like okay macnaheedu wixii xaggan lagu qori doonaa hala mid noqoto double quote adoo isla qaban doona shift-ida iyo double quote-ka. Marka double quote markaad taabatid waxaad qoraysaa 5 calaamad su'aal 1 2 3 4 5 kadib waxaan ku soo xirayaa double quote ama sumadda hadalka. Calaamad su'aaladaas waxay u taagan yihiin inta xaraf ee magacu ka koobnaan doono. Haddaan 5 calaamad su'aal geliyo macnaheedu waxay tahay magac 5 xaraf ka kooban bas ba halkaa gelaya sida farax nimco magacyada wiilasha oo kale waxaan rajeynayaa inuu noqon karo cilmi. Marka magacaas 5 xaraf noqonaya haddaan hadda ka tirtiro aan calaamadaha 5 4 ka dhigana macnaheedu waxa weeyaan 4 xaraf magacaas noqon doona. Marka magaca saasaan ku xadidnay godkan ka hooseeya validation rule-ku isagoo validation rule-ku waa xeerkan godka lagu qorayay kan ka hooseeya la yiraahdo validation text-gan isagoo godkiisa waxa lagu qorayaa xeerkan haddii hadda qof aan adiga diyaarinayay xogta aan ahayn hadduu ku shaqeynayo
qoraal baad halkaa u gelinaysaa hadhow hadduu geliyo meesha waxaan 5 xaraf aan ahayn magaca qofka uu ka badiyo ama ka yareeyo qoraal uu ku fahmayo marka halkaa waxaan leeyahay magacu ha noqdo 5 xaraf aan leeyahay magacu ha noqdo 5 xaraf hadhow qofkan hadduu wuxuusan ahayn geliyo qoraalkana uu soo baxaya marka validation rule waa xeerkii validation textiguna waa qoraal hadhow xeerka haddii laga talaabsado oo 5 xaraf waxaan ahayn la geliyo ama ka badan ama ka yar oo qoraal soo muuqan doono qofku fahmayo haddaynu marino qoraal English soo qoraya qofkuusan garanayn laakiin sidan hadhow fahmaya okay bal aan tijaabino hadda the same view aan joognaa table-keena waxaan leenahay right click data sheet ayaan ku dhufan kadib wuxuu leeyahay isbedelkii aan samaysay save garee yes baan leeyahay ikaydi godkii magacu waa kan godkiisa hoostiisa aan tegayaa booskaas kadib magaca 5 xaraf aynu ku heshiinay haddaan hadda qoro Khalid aan enter dhaho wuxuu saarayaa magacu ha noqdo 5 xaraf marka kan hadda soo baxaya waxa la yiraahdaa validation text oo kii qofku ku fahmayay errorka maadaama hadda aan fahmay oo validation text uu igu yiri waxaad ka dhigtaa 5 xaraf magaca 5 xaraf aan ka dhigayaa sida cilmi interval imika gudbaya hadda isla xitaa 4 ka dhig aan qoro cali inter iraahdo u diidaya kaliya wuxuu doonayaa magac 5 xaraf hadda aan ka dhaho farax ka dhigo inter iraahdo gudbaya marka halka waxa ka fahanteen qaacida marka xeerka validation rule la adeegsanayo magaca waxa lagu xadidayaa halkan ka tirtiro magaca waxa lagu xadidayaa intan like double quote ahlam su'aalada marka khasab maaha inuu magac noqdo waa wax kasta oo qoraal ah waxa lagu xadidaa qaacidadaas ayaa lagu xadidaa markaynu joogno Microsoft Access waxaanu galeynaa marka tiradu iyadu waxay uga duwan tahay oo kaliya meeshan calaamad su'aasha ah ayaa isku bedelaysa calaamadda hashta ama afargeesta oo waxaanu qoraynaa like double quote iyo afargees hashtaas aan qoraynaa marka waa intaas aan tijaabino marka awal waxaan soo taabanay godka magaca hadda waxaan taabanayaa godka lambarka hadda lambar inoo ma diyaarsan halkan laakiin waxaan tagaynaa number cusub baan sameysanaynaa ama tel baan ula baxaynaa telkuna waa inuu noqdo number maadaama waxay yihiin tiro ay yihiin wax la xadidaya number baan ka soo dhigaya inoo numberkan joognaa meel kale ma joogayno haddaan noo rabo inaan lambar xadidno aan joogno taariikhda wax khalad marka telefoonkaasaan joogayaa waa number ka soo dhigay godkiina inaad qaybtay baan rajaynayaa validation rule-ka soo taabo kadib waxaynu qoranaa isla intii oo kale like double quote على سؤال بقى مركز ترى الحديدية وحيسو بدل سافر كيس مركز كوب لا بس ده أفر بنكو حديدية دبل كود كيكو صاحب هذا حلقة هو سنة وحنس كلاي هاي لامبركو يوصن كبدن أفر جود بنلايه لامبركو يوصن كبدن أفر جود إمي كوالك يسان قاعدة دي بقى وحي اسكو بدل شيء هذا حلقة هذا النوت كان كو قريان ديكو سعوديو قرال مركز الحديدية واحد كستو قراله حلقة واحد ده لايك دبل كود في علامة سؤال شاس tan على سؤال شو waxay isku bedeshay afar gees imika aynu tagno marka data sheet marka ogow design waxa la tagayaa view-ga markasto waxa la soo diyaarinaya waxa laga bedelay table-ka laakiin data sheet-ku marka wax qoraysid si aan wax u soo qorno data sheet-kan tagayaa haduu yiraahdo save kare yes baan leeyahay yes okay godkii lambarka ama telefoonka soo kordhinay waa kan afar number baynu ku xadidnay marka hadaan iraahdo 1 2 3 aan enter dhaho wuxuu soo qorayaa lambarku yuusan ka badan afar god marka kamana badnaan karo kamana yaraan karo okay 1 2 3 suminan gelin 1 2 3 4 aan ka dhigo 1 2 3 4 enter baan leeyahay u gudbaya imika sababtoo afar god baynu ku soo xadidnay hadaan hadda 5 ka dhigo aan lambar 5 raaciyo aan dhaho enter u diidaya taana waxa ka fahmaysaan in marka lambar la xadidayo isagana lagu xadidayo meeshii kii hore ay ka ahayd calaamad su'aasha baad isaga waxa loo bedelayaa calaamada afar geesta ama loo yaqaano hash okay imika marka waxaynu xadidnay waa laba shay labada shay aan xadidnay waxa weeyaan waa tiradii iyo qoraalkii imika waxaan u boodayaa waynu xadidaynaa lacagta okay lacagta iyada marka la xadidayo aynu isla tagno design-keena fiigan ayaa lacag inoo ah oo lacagta wixii lacag ah design-keedu waxay noqonaysaa nooceedu currency okay anoo fiigan jooga validation rule-ka godkaas mar walba la tagaya wax la xadidayo validation rule-kan tagaya lacagta markaa waxay noqonaysaa 3 qaybood waa lacag go'an iyo lacag aad oran kartid lacag go'an waxaan ka wadaa tusaale ahaan fiigu ma leh waxaas ama intaa bixi waa lacag go'an oo la isla garanayo gorgortan aan geli karin marka tusaale ahaan waxaan leenahay fiiga ardaygan waa $15 marka lacagta go'an markaa qorayso waxay isticmaalaysaa calaamadda equation ayaad hal mar qoraysaa kadib lacagtii ayaa sheegaysaa sida hadda haddii aynu u diiwaan gelino aynu dhahno equal 15 macnaheedu waxa lacagtaasi waa 15 kamana badnaan karto kamana yaraan karto
godkeedana hoosena waxaan dhahayaa haddii waxaan ahayn la geliyo ka waran 15 marka waxaan leenahay fiigu waa $15 baan lahayn halkaasaan ku fahansiinayna qofka aad soo tijaabina marka data sheet-keeni baan tagaynaa markasta oo access-ka marka wax laga bedelo ama wax lagu soo kordhiyo safe badan ayuu ku weydiin doonaa marka adigu yes waxaan ahayn ay isku taaban way godkii fiigan tagaynaa waa kan fiigayna waxaan ka dhigayaa hadda $12 inter baan leeyahay wuxuu ii soo qorayaa fiigu waa 15 okay baan leeyahay 15 balanteen waxay ahayd in 15 waxaan ahayn la gelin hadda aan qoro 15 inter aan dhaho u gudbaya hadda isku daydina badisid aan dhaho $23 oo kale u diiday fiigu 15 buu leeyahay waxay 23 la ordaysid marka aan qoro 15kii inter aan dhaho markaas isna u gudbaya marka lacagta marka laga hadlayo hadda waxaynu aragnay lacagta qiimo go'an okay lacagtana aan aragnay hadda waxa weeyaan waa qiimo go'an qiimaha go'an isagana see loo qorayay equal iyo lacagta sheegaysa 10 oo kale marka inuu saasan dhahnaa equal iyo lacagta okay lacagtu sidoo kale waxay leedahay lacag aynu oranayno ka yar macnaheedu waxaan qoraynaa meeshaynu equal qorayno waxaan leenahay ka yar waxaan la qoraynaa marka 20 marka lacagtaasi waxay ka yaraanaysaa waa 20 maxaa ka yar de 1 ilaa 19 1 ilaa 19 ka uu yeelaya 20 ka ma yeelayo hadaan rabnay 20 ay yeesho iyada equal baan raacinayna equal marka hadhow maxay ka turjumaysaa lacagtani waxay ka yaraanaysaa lana mid noqon kartaa meesha la gelinayay 20 marka 20 hadii la geliyana way galaysaa laakiin hadaan equal ka tago macnaheedu waa maxay 20 wixii ka yar bay galaysaa ama yeelayo meesha lagu qori karaa aynu tagno table-keena right click siino design view tagno fiigeeni awal 15 baynu ahayd halka equal waan tirayaa ka yar baan qorayaa ka yar marka adoo shift haya comma ama hakadka taabama aad midigta ka xiga okay ka yar baynu qornaa imika halkan hoose aan iska masaxo fiigu waxaan leeyahay ha ka yaraado 15 meeshii baan tagaynaa marka ogaada ka yar hadaynu qornay macnaheedu 15 ma yeelayo waa wixii ka yar bes safe dabada qabanaya marka okay fiigi baan tagaynaa hadda waxaan qorayaa hadda 22 inter dheh fiigu wuxuu leeyahay ka yaraado 15 okay 15 laftirkiisa qor inter dheh uu diidaya waa 15 wax ka yar baa la rabaa in la geliyo hadda 11 hadaan qora inter dheh uu yeelaya xitaa hadaan is dhaho 3 qor inter dheh uu yeelaya marka halka maxaynu ka fahnay calaamada ka yartu waxay u taagan tahay lacagta marka la qoro in wax ka yar oo kaliya ay ogolaato hadii hadda aan ku eegna 20 ka laftir 15 baan hadda soo gelin Soomaaliya hadda qaacidadeena ay ku celiyo waxaan tagaynaa fiigi waa kan waxaan $15 ka yaraado $15 marka maxaynu ku sameynaynaa waxaan dhahaynaa equal ku dar hadda 15 ku diiday xitaa uu yeelaya marka 15 baa ku soo dartay hadda aan tagno fiiga 15 ku diiday hadda intaan qoraan inter dhaho u gudbaya laakiin wax ka badan ma yeelayo oo waxa uu yeelayaa 16 hadaan dhaho inter dhaho u diidaya marka halka maxaan ka fahnay in godkan wixii lagu qoro ay saameynayaan qaacidadeedu okay hadda aan ku noqdo note-ka aan idin tuso ka yar oo kaliya hadii la qoro waa 20 ka wixii ka hooseeya 20 ka uu diidaya equal hadaa raacisid maxaa dhacaya equal hadaa raacisid waxa dhacaya 20 ka laftirkiisa iyo wixii ka yar buu galaya oo lacagtu noqon kartaa ka badan markaynu sameynayno waxaanu sameynaynaa calaamada ka yarta waxaanu bedelaynaa ka weyn sidaas aad u jeedinaysaa full stop iyo shift baa qabanaysaa haddaan nahno sidaa waxay noqonaysaa lacagtaas waxay noqonaysaa 20 wixii ka badan 20 wixii ka badan waxa weeye 20 ku meesha kuma jiro hadaa rabtid laakiin 20 ka inaad ku dartid equal raacso equal shu xaggaanaysa camera calaamada grade ama ka weynta ku xigto okay hadda aan ku noqdo dhisankii meeshii fiigii calaamada sii jeeday ee ahayd ka yar ayaa waxaan u bedelayaa hadda ka weyn okay ayaan ka soo dhigayaa ka weyn ayaan ka soo dhigayaa halkan taabto ka weyn okay aan degdeg marka halkan qoraalkan isaga halkaas sidiisa iska ahaado ama waxaan ku qoraynaa 15 iyo wixii ka weyn calaamadaas aan ka xasuusanaynaa okay data sheet tag save garee hadda fiigani aaway waa kan 22 u gudbaya 20 u gudbaya okay 11 u diidaya waay maxaan niri 15 wixii ka weyn weeyaan 15 laftirkiisa ka waran ma yeelaya in wixii ka weyn baan 15 laftirkiisa hadaan ku diidaya waay waxaan 15 inuu ka weyn hada la rabaa lacagta aan meesho gelin hada waxaan gelinayaa 16 internet u yeelaya macna waxa weeyaan qaacidadii
ayaa ku saameynaysa. Haddaan rabno iminka inuu 15 laftirkiisa iyo wixii ka hooseeya ama wixii ka sareeya oo dhan uu yeelo, waxaan ku khasbannahay calaamadan ka weynta inaan raacino equal. hadhow isla 15 ku yeelaya. Okay, hadda meeshii tag fiiga isla 15 qor u gudbaya awalna u diiday. Okay, halka lacagtaana inaad fahanteen ayaan rajaynayaa. Ka badantuna intaasaad raacinaysaa. qiimaha go'aana waa isla aragnay, qiimaha ka hooseeya waa isla aragnay. lacagta marka halka ayaan uga baxaya ama aan ku joojinaya. waxaanu gelaynaa marka la xadidayo da'da ama age-ka. age-ka sidee loo xadidayaa? age-ka qaacidadiisa waxaan isticmaalnaa qaacida la yiraahdo between ama u dhaxaysa. between baynu qoraynaa marka aynu tagno qaabkay u shaqeyso qaacidada la yiraahdo between. Okay, kadadkan oo dhan aan ka noqdo. waxaan tagaynaa da'dii oo waa tan. da markaan tago halkan hamsa yar aan ku darsado. Okay, ama single quote. da'da inagoo joogna oo hubi inay da'du number ku tahay ayaa waxaan tagaynaa validation rule. qaacidadan qorayna marka waxaan rabnaa ardayga la diiwaan gelinaya fasalkan inuu noqdo 10 jir ilaa 15 inuu dhaxeeyo. marka waxaan qorayaa between u dhaxaysa hal mar space taabo ama hal mar ka durug 10, hal mar haddana space taabo and hal mar space de 15. marka maxaan nidhi da'da halkan loo ogol yahay waa inta u dhaxaysa between 10 iyo 15 inta u dhaxaysa. halka hoosena marka waxaan iskaga sii qoraynaa da'du waa 10 minus 15 10 ilaa 15. Okay, data sheet-keena waan tegaynaa waxaan odhanay save garee aw meeshii da'du waa tan. haddaan dhaho hadda 10 jir u yeelaya waayo da'dana 11 iyo 15 bay u dhaxaysaa 15 u geelaya. haddaan dhaho 9 ka waran aan inter dhaho wuxuu soo qorayaa da'du waa 10 ilaa 15 buu soo qorayaa. hadda 16 ka qorto xitaa u diidaya waayo maxaan ku ballanay 10 ilaa iyo intii u dhaxaysa iyo 15. 12 ma yeelaya dabcan uu yeelaya. marka da'da qaacidadeeda ama formuladeeduna maxay noqotay between labada da'ood baa sheegaysaa marka. Okay, between aan halkan idin yara ballaariyo between hal mar space 10, okay, space and 15. marka da'daasi hadhow waxay ku soo noqonaysaa da'dii la rabay oo ah 10 jir ilaa 15. waxay naga maqaniba waa date-ka ama taariikhda sida loo xadidi lahaa. taariikhdu waxay noqonaysaa taariikh la joogo mid la soo dhaafay oo ah qaybta labaad iyo ta ugu dambaysa oo ah mid aan la gaarin. saddexdaas noqonaysaa. marka mar waxaanu dhahaynaa taariikhda maanta. qofka haddii la yiraahdo goorma ardayga la diiwaan geliyay maanta uun buu yeelayaa. haddii la damco shalay oo la soo dhaafay in la yiraahdo waa la diiwaan geliyay maaha ilaa waa khalad oo maanta la joogay. sidoo kale waxaan samayn karnaa haddaad damcadid inaad u baahatid deyn qof uu maalin hore qaatay oo maanta aan la joogin, deynta waxaad u furi kartaa in laga dhigi karo xitaa taariikh la soo dhaafay mid aan la gaarinna waa isla eegaynaa. waa hagaag. waxaan tegaynaa marka access-keena. waxaan design garaysanayaa table-keena design view-ga tegayaa. taariikhdeena way noo diyaarsanayd oo horaan u diyaarsanay waa kan. godkii validation rule-ka ayaan tegayaa. validation rule-ka markaan tago waxaan ka bilaabayaa taariikhda la joogo. taariikhda la joogo lacagtay ka yara ag dhowdahay equal baan qorayaa date kadib qoys furan oo laga qorayo shift adoo haya lambar 9 hal mar taabo kadibna adoo shift haya aan weli sideen lambarka 0-ga ama eber taabo. intaas marka waxay u taagan tahay date-ka la joogo. note-kiina isugu keen xidho. note-kan tagayaa date-ka la joogo marka sidan aan ka dhigayaa. marka date-ka la joogo waxay noqonaysaa taariikhda equal baa ka horeysa date qoys furan iyo qoys xidhan. taasaa marka ah tala joogo. aynu marka soo tijaabino halkaa marka ka hooseysa maxaynu odhanaynaa haddii taariikhda la khaldo sax date-kan leeyahay ismaba dhibayno. sax date-ka hadha qoraal ku habboon adaa garanaya adaa soo hagaajinaya. data sheet-kan tegayaa waxaan soo baxo dhan hore uga ballanna waa save garanaysaa. taariikhdu marka iyadu waxay uga duwan tahay godkeeda marka la taabto waa tan calaamadda iconka kalandarka waa soo baxaya iyada gacanta lagama qoro date-ka. calaamadda ku dhufo marka waa kuwan date-ki soo baxay bishii oo saxan baa ku soo baxday December 2025. aniga hadda maanta waa 1 haddaan khaldo ilaa waxaan ku soo programnay waa date-ka la joogay oo 15 bishan la gaaray intaan taabto enter dhaho wuxuu leeyahay sax uu leeyahay date-ku maanta un baa la rabay. marka hadda calaamadii ku noqo 1 bisha waa tan halkana today waa oran kartaa haddadan 1 bisha ku soo dhufto oo maanta ah enter aan u gudbaya. maal la soo dhaafay xitaa haddaan intaan doorto meesha aan ku soo dhuftaa 30kii oo shalay ah aan enter dhaho uu iga diidaya. kaliya muxuu date-kaasi ogolaanayaa wuxuu ogolaanayaa today bes buu ogolaanayaa. okay, taas marka waxaa la yiraahdaa date-ka qaacidada date-ka la joogo weeyaan. tala soo dhaafay marka waxaa samaynaysaa waatan
qaacidada la soo dhaafay ama taariikhda la soo dhaafay iyaduna waxay noqonaysaa ka yar kadibna date baad qoraysaa qoys furan iyo qoys xidhan ta aan la gaadhin iyaduna waxay noqonaysaa ka weyn date qoys furan iyo qoys xidhan okay marka aan tagno date-ka hadda date kala joogaan ka dhiganay kala soo dhaafay waxaan ka dhigaynaa calaamadda ka yarta okay hadhow waxaan rabnaa markaynu qorayno taariikhda qofka aan rabno inaanu sheegno xilliga la diiwaan geliyay in taariikh la soo dhaafay bes uu yeelo ta shalay bes buu yeelaya okay waan taabanay date-kii calaamadda soo taabo hadda kowda bisha maanta a taabo uu diidaya waayo adaa waxaa kusoo programsatay date la soo dhaafay iconka taabo mid la soo dhaafay bishii 16keedii bishii hore ku dhufo intana u gudbaya marka taasina waa date-ka la soo dhaafay haddaynu eegno mid aan laba gaadhin oo beri oo kale iyo ama future-ka ah aan tablekeena ka dhigano design view meesha nambarada waxaa iga doonayaa ma raba inaan buxbuxiyo tablekeena design ka dhigano godkii taariikhda waan joogaa waxaan ka dhigayaa meesha ka yarta waxaan ka dhigaynaa ka weyn marka aan ku noqdo hadhow muxuu yeelayaa marka ka weyn macnaheedu waa taariikh soo socto mustaqbalka aan taabto halkan 15 oo kale interne uu yeelayaa maanta laftirkeeda ma yeelayaa baad la tahay kooda bisha ah uu diidayaa waayo adaa maxaa ku xidhata date soo socdaan adiiba gaadhin okay mar waxaa dhacda in laba la isku raaciyo tusaale hadda kan wuxuu ahaa date kala joogo haddaan ka horreysiiyo ka yar laba wada qaata ka yarta waxay ahayd mid la soo dhaafay marka haddii labadaas raacino wuxuu wada yeelayaa taariikh la soo dhaafay iyo mid la joogo tan hoose ay halkan ku jirtana ee ka weyntu waxay u taagnayd date soo socda haddii xaggaa equation laga raaciyo iyadana hal marba wuxuu wada gelin karaa qofku date soo socda iyo ka maanta la joogo marka labadaana waa la isku raacin karaa okay hadda tusaale ahaan anigu aan tago design aan kasoo dhigo hadda keenan wuxuu inoogu programsan yahay date soo socda haddii maanta la geliyo uu diidanaa equationaasaan raacinayaa taariikhda maanta uu yeelaya okay taariikhda tag ka maanta dooro today waa kan number 1 saas uu yeelaya kooda bisha waxay ka sareeya ma yeelaya waa idin la tahay kooda bisha waxay ka sareeya uu yeelaya okay taasna marka waxay keentay in laba la isku raaciyo haddaan hadda ka dhigno equation ma horeyn karto waa inay dhexdaa mar ku jirto ka yar ka dhig oo taariikh la soo dhaafay iyo tala joogu hal mar wada yeelaya hadda qaacidadu sidaa u qoran tahay okay taariikh la soo dhaafay aan doorto hadda kow soo 19 bisha uu yeelaya tamaanta ka waran tamaantana waa kow soo bishu uu yeelaya halkaa marka waxaynu ka fahnay in qaacidadan date-ka marka la saxayo oo la programinayo laba la isku raacin karo laba date laakiin maxaa xeera in equation-geedu dhexda ku jirto marka saddex taariikhood bay marka hore ahaayeen waa date la joogo oo equal kaliya la isticmaalayo date la soo dhaafay oo ka yar la isticmaalayo date soo socda oo isna la isticmaalayo ka weyn haddii laba loo baahdana equal uma raacinaysa hadda tan macnaheedu waa maxay waxa weeyaan waa date soo socda date la dhaafay iyo kala joogo hal mar wada gelin kartaa tan waxaad gelin kartaa taariikhda mustaqbalka soo socota tan waxaad gelin kartaa taariikhda la joogo marka sidaa waxaa halkaas inoogu dhan qaacidada la isku yiraahdo validation rule waa xeer ka caawinaya xogtaadu inay saxsanaato waa mar kale iyo macallin Ibraahim Cismaan channelka haddaadan subscribe oo dhan si 10 kuwan iyo kuwa lamid ah aan u soo gelino aadaysan ku dhaafin waxaan ka codsanayaa mar kale inaad channelkana subscribe dhahdo hala share garayso ardaydaas leedahay ka faa'iideysato salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh